السلام شركنا العاوس ودي مدني ujeedadiisu wax weeye odayaashu salaadiintu waa kii muddoba ilaa 2000 iyo 12 2000 iyo 2 ilaa 2000 iyo 14 ilaa hadda u dambaysa salaadiintu way hadlayeen marka salaadiinta waxaan isku ogeyn in ay gaadhay waqtigii ay hadli lahaayeen aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta dhalinyarta iyo haweenku ay hadli lahaayeen bulshadu ay hadli lahayd ballankaasi isagoo yaala ayaa waxaan soo xidhiidhnay horena waan u wada hadalnay Suldaan Saleebaan Hargeysaan ku wada hadalnay ayaan soo xidhiidhnay Suldaan Saleebaanna marka iyagu maqnaashooga odayaasha caawa waxa weeye arrinkan isku ogeyn baa aynaan anagu hadalno maadaama aan taageerayno wixii ay yidhaahdeen laakiin suldaanka oo ah suldaankeenna ugu da'weyn isagu wuxuu jeclaystay inuu halkan isna ereygiisa ka yidhaahdo waana soo dhowaynaynaa waanan si fiican baan soo dhowaynaynaa taas saasaan niga shaafiyayaa waa inaad ogaataan un la isweydiin baan doonayaa odayaashu iyagaa de hawlaha soo waday muddo soo wadeen wayna wadi doonaan innaguna waynu ku daba soconanaa laakiin waa la istaageersanayaa waxa weeyaan rag badan baa hadli doona caawa halkan waxaa fadhiya marka Suldaan Saleebaan laga yimaado halkan ragga fadhiya waxay u badan yihiin rag siyaasiyiina xildhibaanadii way joogaan wakiilaha ka jooga goluu fasax buu ku jiraa laakiin cid bay soo dirsadeen wasiiradii hore way joogaan wasiiradii hore markay xilka ka tageen bay hadlayaan danta ummadda looga baaqsan maayo danta ummadda loogama baaqsanayo waxaan xog hayno iyo waxaan arrin hayno iyo waxaan itaal haynaba waan isku biirsanaynaa loogama baaqsanayo taa cid xil haysa oo xilha laga qaada laleeyahayna ma jirto wax kororsiimaynu raadinanaaye cidna meeshay joogto kuma doonanayno ugumana tegayno waxaa la kordhiyanayaana wakhtigeeday gaadhiyoo ciddii alla u calfaa heliye wax guud ma wada raadinaa weeyaan taana isla u ogaada waa niga shaafiin halkan waxaa jooga dee wasiiradii horaa jooga maxamed jaamac albiyaal baa jooga cabdirasaaq baa jooga waxaa jooga wasiiru doolihi waraawe cabdillaahi ma jooga cabdillaahi cabdillahi arbaca u joogaa marka raggii aqoonyahankana way joogaan saddexdii xildhibaan baa halkan jooga waxaa jooga xasan halas kolkaa arrinku bilaal me u joogaa soo maa bilaal ya dee la hadal waxa weeyaan markaa arrinku waa sidaa handuluucda u tago haddaba wax badan baa ina sugaye horta waxa weeyaan da'yar baa tiina ka faa'iidaysta somalilan qabiilka keliya heshiis la galay markii ingiriisku yimiday ee saylac kula galay gadabuursi buu ahaa waxaan kale waa laga sheekeeyaa un qolo berbere cashuuran jiray oo nuux ismaaciilka marka axmed nuuxaa deganaaye kuwaana kolkii dambe heshiis buu halkaa kula galay qolada warsangelina dhinacaasuu kula galay dadka xeebaha degan buu dee la gelaya heshiiska 1884 dhulkan maxaa la yidhaha baa la yidhi mamlakatu awdal baa la odhan jiray mamlakatu awdaliya ayaa la odhan jiray oo loo yaqaanayoo waxay yidhaha odayaasheennii ardu soomaal baa la yidhaha sida somalilan horta ku baxday waa sidaa haddii gobonnimadii ingiriiskii la kicinayeyna dharaartii hawdan reserve area la bixiyey awbarraa abaabulka laga soo sameeyey booramaa la isku yimiday
hargeysaa la tegey burcaa la tegey ida bursigaa loodiisii iyo gorowiisii iibiyey oo sahay ka dhigtay oo arrintaasaa laga xumaa hawdan sefer iyo ingiriisku wareejinayay kacdoonkii ka abuurmay markaa kolkii burcana la tegey iyo hargeysa la iskugu yimiday waa tii labada suldaan iyo michael maryama lagu diray ay london ku tegeen taana inagaa lahayn ta kale wax bini aadanku abuuro oo iskaashi uu ku sameeyo dee boom baa u horreysay dalka soomaaliya o dhan ku fiday halkaasaa horreysay wax iskuol ku dhisaa dibi ku dhisana halkan un baa jirtay ped school bayek oxon iyo beya shilin hadaaradii horumar baa ayaa jirtay dee haddii intaa laga soo gudbay oo dowladnimadii 60kii la helay waxaa iskaashaday SNL iyo USB markii la tegey ingiriiska heshiiska ingiriisku bixinayay wuu yidhi anu qolaan heshiis la galay qoladii mayna la socotaa habaa le jibraan nuur baa la socday dee saasaa heshiiska lagu saxeexay haddii la soo noqdayna itifaaqiyad bay galeen USB-da iyo SNL inay dowladda qaybsadaan NUF baa laga soo horjeeday markaa way markay ku shireen khaatumo ida bursiga dhubaataha warsigeliga ciisaha markay ku shireen halkaa SNL way soo dhaweysay qolada kalena waxay tii waa qabaa'il baa halkaa ku shiray oo iyagaa iska dhigaya inay qabiil hayn qoladii soo dhaweysay itifaaqiyad bay galeen waxay dhaheen dowladnimada aynu helno waan qaybsananaa dowladdii la dhisay markaa 60kii the leader of the government oo ina cigaal ahaa hogaamiyihii wasiir intaasay beesha dhexe qaata wasiir xaaji ibraahim nuur marxuum xaaji ibraahim nuur iyo marxuum cali garaadna afartaas ayano saasaa loo qaybsaday equal baa loo qaybsaday raggii siyaasiga ahaa markaa 20 kursi baa heshay SNL kursina NUF baa heshay 12 USB baa heshay raggii siyaasiga waxay yidhahdeen dee kuraasta waan helnaye dowladda han dhisanno odayaashii baa diiday oo yidhi itifaaqiyadaan galnaa la hirgelinayaa mar walba siyaasigu kama turjumo dareenka shacbiga kama turjumo odayaashii baa qabtay saasay ku hirgashay haddii koonfur la tegeyna iyadoo la kala socdaa la tegey dee iyagaa majority ahaa iyaga oo kala socdaa dee la tegey wax kastoo dhibaato kastoo dhacdayba dee waxaa lagu soo noqday in ay dhibaatooyin dhacaan dhibaatooyinkii dhacay iyo burburkii dalka ka dhacay wax kastaa lagu sheegee nin baa beri nagu yidhi annagoo u soconno baran ayuu nagu yidhi nin BBC-da dhegaysanayay oo warsangeli u hayo nin riyaan u hayo nin carmaana la yidhaha yaan ku marnay galab 5 barhkiia markaa nin buu noo maleeyo markaasuu baabuurtii bay kala jeediyeen markaasuu yidhi wallahi waxaan moodayay ninna soo weeraraan moodaye raalli ahaada ninkii baa noo sheekeeye wuxuu yidhi tan iyo axmed gurey sayidkii wax kastaba ha dhac soomaali umuladooxun bay haydeen wax halgan la yidhaha ma jiro halganku ujeedooyin buu leeyahay umuladoox weeyaan buu yidhi arrinkeennu waxba halganna ma jira buu yidhi ilaa axmed gurey buu yidhi umuladooxun baynu ahayn buu yidhi dhibaatooyinkii dhacay waynu ka wada hadalnay haddaynu kala hadhnay siyaasiyan shalay waxaan idhi maanta aan timaha dhinac u wada xiirno oo wixii umusha u danaa ilmaheedana u danahe wixii beesha dhexe u danaa innagana inoo dana haddii arrin kale la gelayana iyadoo heshiis layaa la galo haddii halkan ay noqoto dowladna magaalo madax fiican noqotona dee afgooye baynu noqonanaaba saabtan
odayaashu dee ma xisaab la'ayn burcaa la tegey itifaaqiyad baa la gaadhay heshiis madaxweynuhu habeenkii dhoweyd 26 juun mudane muuse biixi cabdi odayaashii saxeexay buu tiriyey hebel 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 laakiin wixii ku jiray lagu heshiiyey ma akhriyin heshiiska u weyn ee ku jiray wuxuu ahaa beelaha reer somalilan inay si siman u qaybsadaan dowladnimada dowladdu markaa waxa weeyaan waa golayaal fulin iyo tashriici tanfiidi iyo qadaa'ib ah saasaa ku taalle madaxweynuhu waxay dayn wada akhriyo qodobada 9 oday iyo 9 oday baa saxeexay 9 waxay ahaayeen beelaha kale 2 gaday buursiya 2 ciise ah 2 warsangeliya 3 dhulbaata 9 kaasi beelaha kale 9 reer beeshan dhexun bay ahaayeen waxay ka turjumayeen odayaashu arrinka iyo dowladnimada aan dhisanana sidaasay inoogu dhaxaysaa kamay turjumin dee tii siyaasiyiinta oo ujeeddooyin fara badan baa jiray waa kii isku horimaadya dhacay isku horimaadyadiina waynu ku gurmanay si fiican baynu uga qayb qaadanay shirkii booramana markaynu burco waan u gurmanay berberaynu dhammaystirnay sheekh baan ku dhammaystirnay booramaa lagu soo ballamo halkaynu ku martigelinno dowlad baynu dhisno walaalaheen bay haayeenoo waan kala nabadsiinay laakiin waxaad mooddaa inaynu sugaynay abaalgud brice baynu sugaynaan u malinayaa siyaasaddu brice male waa la goostaa hadday iyagu yidhahdeen waan soo halgannay innaguna miidaankii nabaddaan abuurnay nabaddaa lagu joogo innagaa sabab u ahayn ilaahay kolka laga yimaado mahaddiisa sababta innagaan ahayn intaa marka laga yimaado berigaan burco ka nimidnay 19 hoosta ka xariiqda 1991kii ayaa bishii juun waxaa la soo diray ingiriiskaa soo diray nin ka socda departmentka arrimaha dibadda ingiriiska yaa la soo diray ninkaasi berberu ka soo degay toos booramu yimiday odayaashii markaanu maamulkan joogo odayaashii baan holkaa u shirino odayaashii baa warramay sidii dee berigii uu ahaa sababtii iyo cabsidii jirtay iyo wixii jiray iyo maanta w xaaji abubakar allah u naxariistay ayaa gebagabeeyey arrinka oo wuxuu yidhi ma arrinka somalilan inaanu ka siman nahay oo inaga go-aan tahay mise inay walaalahayo wax iskugu kaayo dhiman yihiin walaalahayo waxbaa iskugu kaayo dhimanoo annagaa ka wada hadli laakiin arrinka somalilan uu naga go-an yahay warta somalilan way naga go-an tahay wixii dhinnaaye maalintii la sheegayaan raadcaynana haddaba fahamtu ninkii joogay uu joogay shirkii boorama dowladdii lagu dhisay dee cigaaluu qaybiyey madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirkii gaashaandhiga innagaa qaadanay xaabsadoo dhulbaatay wuxuu ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada taliyihii booliska waxaa laga dhigay cabdidhabo oo muxuu ahay dhulbaato ah guddoomiyaha maxkamadda sare muuse idaar buu ahaa allah u naxariista intuba dee nin dowlad yaqaan waxa uu qaybiyey awoodihii uu qaybiyey taliyayaasha ciidamadana saasaa loo qaybiyey hogaamadu saas u qaybsanaayeen xoogga ugu weyn ee tegey ee dagaaladii sokeeye ee 94kii dhacay tegeyna inagu ahaa ciidankii u horreeyey waxaa qaaday allah u naxariistee axmed xaaji bahdoon baa ka qaaday halkan muxuu ahay xariirad 200 u horreeyey kolkii dambana ilaa 7,000 oo qof baan geynay waa la kala badbaaday haddii kale saxsuuq buu noqon lahaa saxsuuq baa dhici lahaa innagaa kala badbaadinay
laakiin askartii haddana maalintaa tagtay maanta waxbay nagama joogaan wada technicana lamaynaan tegin quradana maynaan haysan saraakiil meel xukuntana ma jirin leenta reer garaamkaa la wada cunayaae lagu haynayaa raggae kolkii lacagtii devaluation ku dhacay ee lacagtii ay qiimo dhacday nin walba dee waxba goyn weyday iska soo dhaqaaqay waxa weeyaan xukuumaddii 2002 markii aftida dastuurka la qaaday marxuum cigaal waa kii keenay xeerkii doorashada golayaasha xildhibaanada inuu ka soo dareereen doonista iyo wax doonista ma bilaamin hadda ma bilaamin 2002 maalinta laga soo dareeray ay bilaabantay bursugu muxuu doonayaa iminka bay hadlayaan iyo waxaas sheekadaas meelaha laga yidhidhaa weeyaan maalintaasay bilaabantay rayaale madaxweyne ku-xigeenaha markaa iyo aqalkiisa goglo ooliyo yidhi balaan isku soo gaadhna arrinta iyadoo sidii u taaganoo bandin ah waa kii alla u naxariistay marxuum cigaal dhintay waa kii rayaale meeshii fadhiistay rayaale wuxuu yihi maantun ha lagu galo one time use maxkamadda sare markay golihii wakiiladu diideen doorashada waa kii yidhi maya dimuqraadiyadan socodsiinanaa haddii la i doortana hagaagsan haddii kalena kii dimuqraadiyaddii hirgeliyaa noqonaya dimuqraadiyaddii uu sameeyey maalintaa dowladaha hoose lagu doortayna 2005 golaha wakiilada isbedeshay qabiil bay noqotay qabiil iyo xisbi isdhex galay nimanka guddoomiyaasha xisbiyaduna cuqaal bay noqdeen shaqadii cuqaashay qabteen belheblaayo nin ii keen nin dad wata ii keen sidaasaa xulkii iyo kaadarkii dalka hoggaamin lahaa ee xisbiyadu ay korin lahaayeen halkaasuu ka baxay maanta xaaladda lagu sugan yahay waxa weeye xaalad dalku uu ku sugan yahay horena waan uga hadlay 17 bishii May baa la wareystay maalintii dabaaldega ka horeysay xaaladda uu dalku ku sugan yahay ruufadkii qabyaaladdu ku jiraa ruufad qabyaaladeedna dowladnimo ma dhisayo beesha dhexaa lagu ballaariyey siyaasiyiintooda ku ballaariyey waxaanay ku shaqaynayaan xeerkii qaaxo ee 8doodii baaho cid waliba waa 8 baaho weeye igadi bursi waa 8 oday weeyaan dhulbaatu waa 8 oday weeyaan 8 baahan nahay inaguba sama u taqaanaan ma taqaanaan ma calaa kulli xaal waxa weeye sidaasay marka waxa weeye ciyaartu waxay maraysaa ninbaa odaga suleex baa yidhi nin ciyaartooyaanu sheekhuda ciyaaranu yidho ciise diidaa baa la odhan jiray u yidhi xeegadii la ciyaari jiray midaan soo gaadhay dadku wuxuu yidhi kolkuu usha kugu dhifto intaa war usha naga daa odhan jiray ciyaarta amba ku jira amba ka bax madaxweyne muuse wuxuu leeyahay amba ku jira amba ka bax laga bixi maaye isagaa ka bixi waa lagu jiri somalilandna cidna uma daba fadhiisanayno waynan xuquuqdeenna iyo xaqeennana waxaan cid weydiisanana maahee miiska waa in lasoo wada fadhiistaa oo laga wada hadlaa sida wax loo wada yeelanayo sida wax loo saxayo waa in laga wada hadlaa hadalka waa layga dambeeyaa rag baa ka hadli doona warmurtiyeedka oo gebageba noqon doonana waa halkan laynaga akhriyi doonaa waxa weeye maanta barbarkay ka baxdaa waa bakeyle qaleen wadajirka iyo midnimada wax lagu goostaa boormaynu ku wada nool nahay meel kalaan kala joognaa meel kale maan kala joognaa haddaan boorama ku heshiin weyno maxaan goosanaynaa waxa weeyaan ku yaroo beri 90 waxayd baan umaynaya 2001 iyo waxaas ahayd baan umaynaya intaan shirka carte la qaban iyaga bursi waxay ku shireen Ottawa galaa naxariistay general talana uu ku jiray uu ka qayb galay ku yaroo reer Djibouti jaamac baa garanayay
ورجع جبتي حاو أكن حيرنا أيا وحوري كلمة بوري ورقولدي نقدر برسموري الساق وقبيلة هذا وحكي قادن كر ويدان مصومالو وحكي قادن كرتان وحو قادن كريلان أي وامدني بران خير قولي مو وضاقاته أو حل نورته ويضل ما أنت كم بقنت هاد نبر روم بتقولي هالكا بوسك السياسي مركو سمايسبو ما لين بنين باقنا أنقول عدنا مدون إننا ميل لقى ريحه عدنا دولان كماليهن ترين كشعب جاي كان كترجمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته